السلام عليكم ورحمة الله. markale ku soo dhawaad channelka. Maanta videogan wuxuu ku saabsan yahay maxaa la dhahaa cuntooyinka ah inaad iska ilaaliso marka hilibka iska dhimaysid. Saawada ognahay markaas caateynayno waxa qasab ayna cuntooyin qaar yareeno. Cuntooyin sidii normal ah cuni jirno ma cuni karno. Bariis, pasta, canjeero, rooti, maalol ma cuni karno markaas caateynayno. Sababtoo ahna waa cuntadii maxaa la dhahaa ina hilib nafulo noo keento waa midaas. So hadda ayda sii wadno macquul ma aha inaan mataqaan hilib naga dhaco. So waa dul mari doonaa video kale ayaa sameyn doona cuntooyinka aan cuni karno marka is caateynayno. So kan maanta waxaa waa cuntooyinka ah inaad totally ka fogaatid marka is caateynaysid. So aan ku bilaawno midka Soomaalida badankiisa wada cunto kaasoo la dhaho carbohydrate carbs kaasoo ah bariiska, baastada, canjeerada, rootiga iyo waxyaalo kale oo fara badan. So hadda Google ku qortid carbs ama carbohydrate waxa arkaysaa million. So bahalkaas carbs wax la dhaho waxa waa isilmaamaysiin ilaa cabaarko noloshaada dhan inta ka dhiman ma aha, laakiin inta hadafkaaga gaaraysid waa isilmaamaysiin ama waa yareynaysaa ama isbuuc laba mar saddex mar cunay sida adiga xalkaaga ku ah. Laakiin muhiimadeena waxa waa inaan joojino. Sababtana waxa waaye hormone la dhaho insulin ayuu maxaa la dhahaa la shaqeeyaa. So marka carbs cuntid insulinku waxa waaye hormoonka jirka bini'aadanka hilibka xareeya. marka cuntidna maxaa la dhahaa carbohydrate jirka wuxuu leeyahay niyo okay carbohydrate badana haysanaa jirka bini'aadanka waxa soo carbohydrate uma baahno. Carbohydrate badana jirka ku jiro soo noo xareey maanta sababtoo ah biri wix dhici doono ma naqaano, biri abaar ina dhici doonto ma naqaano, si biri u isticmaalno. So energy ahaan ayuu u reebanaya jirka. waa sababta dadkii waagi hore 1900 maxaa la dhahaa 70 30 dad ma la arki jirin dad 150 kiilo ah way yaraayeen sababtoo ah carbohydrate kan faraha badan ma jiri jirin. McDonald ma jiri jirin, pizza ma jiri jirin, qashin oo dhan ma jiri jirin. dadkii waagi horena waxa lagu leeyahay waqtigii saxaabada iyo dadka maxaa la dhahaa laba waqti hal waqti waxa soo cuni jiray cuntadooda xad ay lahayd. Laakiin maalmahan maba joojinayna ilaa waxa waa caloosh bidix waa lagu wadaa. So waxyaalaha faraha badan mataqaanaa cunayno jirkeenu waxyaalo badan ay affect gareynaysaa. marka carbohydrate ma ku sii jiro marka carbohydrate badan cuntid jirka bini'aadanka waxa lagu leeyahay intaas oo carbohydrate loogu talagalin. marka anagana Soomaali hadaan suux waa soo kacana canjeero waa full of carbohydrate waxa laga yaabaa 200 300 gram inaa cuntid. doorki waa imaanaysaa saxan bariis saxan pasta isla dhacaysa 300 400 gram kala carbohydrate cunay cashadii kasii daran. So adoo waxa laga yaabaa maalinkii 1000 gram carbohydrate inaa cuntid 1000 iska dhaaf 1000 isbuuc xitaa lagu talagalin inaa cuntid. jirka bini'aadanka 200 150 300 qofka ugu badan oo almiiteeyo biro culus qaada ama orod badan sameeyo ama binooni badan dheelo 300 ilaa 350 gram ama maalinka loogu talagalay adina hal waqti ah intaas cunaysa. So hadda si u fiiris marka ma wanaagsana carbohydrate-ka waa sababta dadka markay sokorta ama balaayada ku dhacdo loo dhaho cuntooyinka noocaas joojiye. sababtoo ah waxa blood sugar-ka kor ayuu qaadayaa, insulin-ka kor ayuu qaadayaa. marka carbohydrate waxa la dhaho maxaa waaye red card siinaysaa ilaa cabaarko haye. midda kale carbohydrate waa midda labaad cabitaanka juice waa jecelnahay fridgedeena waxaa waaye juice doo ku jirin waxaa nabad ma jirto. Coca-Cola waa jecelnahay, Fantada waa jecelnahay, qofa cabin uu nagu yaryahay. laakiin halka maxaa la dhahaa gasaca Coca-Cola inta sokor ku jirto daa aragtid ma aaminaysid 2 koob ilaa 3 koob oo sokor ku jirto. qofka bini'aadanka 5 qaanda xataa maalinka loogu talagalin sokor inuu isticmaalo. halkii maxaa la dhahaa Coca-Cola 2 koob 3 koob markaa cabtid maalintii meeqa Coca-Cola cabi kartaa waa waxa 3 4 ka toori jiray. So ma fiicno caafimaad ahaan iyo maxaa la dhahaa hadafkaaga guud jir dhistaan ama iscaateen ama inta kuma fiicno. So waa hilmaamaysaa kuwaas waxaa cabee biyo cad kanoo kale weyn isoo agdhig maalin walbo. waxa kaliya cabaysid waxaa waa kan biyo cad inta hadafkaaga ka gaaraysid. sababtoo ah biyo cad waa ognahay faa'iidooyinka leeyihiin waxayna ku buuxinayaan maxaa la dhahaa booskii cabitaankii waxaas ku daldala jirta. midda kale shaaxa iyo kafeega sokorta badan Soomaali hadaan ma laga yaqaano shaax hadii dhaq lagu siinaa sokor yar ama la taabsiinayo. anaa kooka ee shaax hadaa cabayo 3 qaanda 4 qaanda dhab inaa ku dhaawaa. So beerto waasan soo jeedin ma wanaagsano cabitaanka noocaas inaa iska ilaalisid. So loo ma ka hadalnay
qaybta saddexaad noo soo hartay waxaa waaye fats markaa dhaho kama wado fatka maxaa la dhahaa avocadada ku jiro iyo fatka maxaa la looska ku jiro iyo fatka ukunta ku jiro kaas kama hadlayo kaas waa kan aan u baahannahay jirkeena ayaa u baahan testosteronkeena ayaa u baahan zaaid ayuu anfacaya kaas laakiin waxaa fat markaa ka hadlaya waxaa ka hadlayaa fatka cuntooyinka junk food ku jiro kale sababta ogna cuntooyinka junk food fat ku jiro McDonald hadaa tagtid oo maxaa la dhahaa cuntada kugu soo horeysa aragtid waxaa waaye 90% fat waa so fatkaas oo kale ma fiicno sababtoo ajirkeena asna wuxuu ogolaanayaa inaa mataqaanaa hilibka u xareeyo midda kale fatka sababta ognahay calorie ku jiro zaaid uu badan yahay tusaale ahaan oo kale proteinka halkiisa gram waxaa ku jirta 4 calorie laakiin fatka waxaa ku jira 9 maxaa la dhahaa halkiisa gram 9 calorie ku jirto so hadaa cuntid 100 gram waxaa waaye calorie zaaid fara badan ay cunaysaa marka uma baahnid waxaa soo maxaa la dhahaa fats asna waa inaad iska ilaalisaa midda kale ugu dambeyso oo ah maxaa la dhahaa waxyaalaha cuntooyinka ugu darsano tusaale ahaan oo kale maraq digaag oo kale dadka badankiis ma akhriyaan laakiin bacda maraq digaag hadaa akhrisid waxaa ka buuxo qashin wax markaa gadanaysid label ay ku yaal labelka iska akhri maxaa la dhahaa ketchupka maxaa la dhahaa ketchupka yaanyada aan ku darsano cuntooyinka bisbaaska cuntooyinka ugu darsano maxaa la dhahaa habaysan kuwan bisbaaska Soomaalida ay sameeyso ma sheegayo toman iyo kan maxaa la dhahaa geedka ma sheegayo laakiin bisbaaska habaysan badankiisu waa aragteen sukara ka buuxdo waxa ka buuxo carbohydrate ka buuxo laakiin dadka badankiisu waxa u maleeyaan in waxba ku jirin waxa laga yaabaa qofka inuu ketchup ku darsanaa markuu ku dhaho inuu saxanka dhan uu ketchup ku qurxiyo guduud wada noqdo ketchup yahay bisbaaska sidoo kale maraq digaaga sidoo kale sooska qaarkiis sooska aan ku darsano kuwa fiicnaan jiro so marka wax afartaas waxayna iska ilaalista ayaa muhiim ah video soo socda ka hadli doona waxyaalaha cuni kartid so kana data outid part 2 ayaa soo socoto inaad la socotid waaye aad dul marno carbohydrates maxaa niri juice-ka iyo fatska iyo maxaa la dhahaa maxaa la maraq digaaga iyo waxa cuntooyinka ku darsano inaad iska ilaalino video uu dheeraanaa ilaa 8 daqiiqo soo socda ilaa 10 haduu gaaro waxa dadka madaxa qabsan video zaaid dheer oo ma daawan karo 24 saac 10 daqiiqo dhan iga cunaa so channel ka hadaa ku cusubtaa waxa la sameeyaa waa taqaana like subscribe asxaabta gaars peace out